colaadda Boosaaso ayaan hore ugu soconayay goobihii lagu dagaalamay ee magaaladaasi Boosaaso ayaa maanta xasiloon kadib markii la kala qaaday ciidamadii dagaalamayay ee Puntland ka wada tirsanaa PSF-ta kuwa la yiraahdo iyo kuwa kale ee dawladda weli ma jirto xog rasmi ah oo ku saabsan khasaaraha ka dhashay dagaalkaasi la xiriiray xilka qaadista taliyihii hore ciidamada PSF inkastoo shalay heshiis xabad joojin ah la gaaray haddana xalay ayaa dagaalku dib u qarxay haddaba goobihii ciidamada laga qaaday waxaa tagay wariye Maxamed Dhalo oo warkan soo diray goordhaweed waan in muddo ay wadeen ismadan magaalada Boosaaso culimaadudiinka iyo waxgaradka waxa lagu guuleystay in galabta la kala qaado ciidamadii isku horfadhiyay xaafadda Ridwaan ee magaalada Boosaaso kuwaas oo ka wada tirsanaa ciidamada Puntland waa ciidamada PSF iyo ciidamada daraawiishta Puntland oo halkaasi uu dagaal 3 cisho ku dhex marayay waxaanu galabta tagnay goobihii ciidamadaasi ay isku horfadhiyeen ee jiida u ahaa oo ay difaaca uga kala xiraa labada dhinac oo ay ka muuqdo qurubyada rasaastii halkaasi la soo adeegsanayay sidoo kale waxa shirkaduhu ay taagayeen baalayaashii korontada ee ay dhulka soo dhigeen ee rasaastu iyo tuubooyinkii dilaacay oo kuwa biyuhu ka bayeen waxaanu aragnay dhul badan oo ay rasaastu saameysay iyadoo la og yahay in ay saameyn ku yeelatay rasaastaasi guud ahaan magaalada Boosaaso oo ay dadna ku dhinteen kuwana ku dhaawacmeen isbitaalada magaalada Saaka oo ugu dambeysay ayaa dad la soo gaarsiiyay dhaawac iyo kuwa dhimasho ah iyadoo la baahinayay oo la raadinayay dadkaasi dhiigooda waxa barakacay oo magaalada ka baxay dad tiro badan oo iyaguna daadsan wadada Boosaaso ku xirta gobolada kale ee dalka qaarkoodna waxa ay tageen tuulooyinkaasi iyadoo degmada Carmo iyo deegaamada hoos yimaadana dad badan ay gaareen suuqyada magaalada ayaa xiraa muddada 3 bari ee dagaalku socday sidoo kale waxaan waxba ka soo degin dekada magaalada Boosaaso iyadoo naloo sheegay in dekada doonyihii taagnaa ay u goosteen dhaka badweynta kadib markii dagaalku bilowdayba waantan iyo nabadeyntan ay ismadu keeneen ayaa xalay sidan oo kale lagu dhawaaqay xabad joojin iyadoona xalay rasaastu bilaabatay laakiin maanta caawa waxa muuqda in ciidamadii la kala qaaday oo rajadu ay intii dhaanto umaatay Maxamed Dhalo oo nooga soo warramay Boosaaso dad badan ayaa hadaba ka barakacay magaalada Boosaaso waxaana u badan maati caruur iyo haween oo qaarkood ay magaalada Muqdisho hor uga soo barakaceen waxa ka mid ahayd haweeneydan murqabkii sidii xabadda noo qabatay oo hoobiya korkaayna lagu garaacay ilmaha waa kala dhuunay saasna ma fiicno dadka masaakiinta intii saad loo galay ma aha xamara ka soo qaxna waxa imaanay Boosaaso haddana xal dhibaatadii ni gaarto waa la yaaba hadda laba wiil ay iga maqantay laba wiil aan dhalay ay iga maqantay darbiga iska fadhiistay ma fahantay xabadda ana laga joojiyo walaalayaal xabadda naga joojiya aniga ay gana xasan suldaan ah ka hadlo meesha ma fahantay والله بلا دبات أنا عرورتين وكلا دونا أنا عرورتين لبى جبر يسوق عن قش واقوان لبى جبر لبى ذان واي لبى جبر يسوق عن قش لبى ويل واي قدنتي ما هي حالي أيو دبي حال حبض الدعس وكلا عرّ المويلش وكلا عرّ شن إلى 20 سنة أكوننا ولا لا ودي برينا أنا ألقى دايو هو بيد الدبات دي دندر أنا ألقى دايو haddaba dagaalkani sidoo saameyn u yeelan karaa la isweydiinaya hawlgallada ka dhanka ah al-shabaab oo gobolkaasi joogta waxa su'aashan iyo kuwa kaleba aan weydiinayaa oo khadka toos ugu jira magaalada London Cabdisalaan Guuleed oo ka faalooda arrimaha amniga iyo ciidamada Cabdisalaan soo dhawow ciidamadan ka wada tirsan Puntland waxay dagaalka kula jireen al-shabaab iyo Daesh ama IS kuwa la yiraahdo imikana iyagiiba ciidamada isku jeeda sidee bay u saameynaysaa hawlgalladii ururadaasi lagu la jiray Boosaaso waxay u ahayd waa magaalo lafdhabar u ah haday noqoto amniga iyo haday noqoto nolosha koonfurta Soomaaliya waxa ku xiran oo noloshaan ku tiirsan dad tiro badan ilaa waxay quudisaa gobolka Hiiraan ilaa gobolka Bakool ayaa noloshaas ku tiirsanta marka sida hadda warbixinta ku jirta waqad aragtay doomahan iyo dib u dhacan ganacsigu runtii saameyn weyn ku leeyahay dhinaca kale furintan badda cas ee Boosaaso ciidamada jooga Puntland waxay hor taagnaayeen al-shabaab oo de buuraha si maaragtay runtii xooga u saaran 60 kilomitir waxa u jira magaalada buuraha galgala ama tuulada galgala la yiraahdo oo lagu yaqaano inay marin iyo deegaan u tahay al-shabaab dhowr saacadood oo dhulka ama badda ana waxa u jira magaalada Qandala oo ah magaalada ugu horeysa Afrika ay IS qabsatay magaalada Boosaaso waxa kale magaaladaas mariin u ah hubka sharci darrada ka soo degay Yemen ciidankan marka wuxuu ahaa ciidan keebla yuurar u ahay oo waardiyeeya waxa magaaladan imaanaya ee al-shabaab ee sharci darrada ah iyo argagixisada iyo dadka kale ee dadka tahriibiya intaba wad ogtahay bilowgii sanadkan ilaa 400 ku dhawaad ayay shabaab ka sii daayeen xabsi ku yaala magaalada Boosaaso oo waliba u suurta gashay inay macal maxaabiista magaalada kala fakadaan
qatarta intaas la eg marka ee isha la iska dhowrayay ciidankii waardiinayay haddii uu asagu isku mashquulo isdagaalamo runtii waxaa ka faa'iidaysanaya al-shabaab magaalada boosaaso marka maxay tahay boosaaso waa magaalo yani isku raran ah oo degaan ahaan iyo qaab dhism ahaan magaalo duq ah magaalo isku raran ah difaaca magaaladaas marka looga jiro oo dee la ilaalinayo isha la dhowrayo haddii wax yar la ilduufo waxaa imaanaysa inay shabaab sidii rabaan usoo galaan oo laga yaabo maanta dee inay soo galaan waxay rabaan inay ka sameeyaan taasuna khatarteedu waan gartay cabdisalaan markaad eegto guud ahaan ciidamada soomaalida ciidanka soomaaliya o dhan waad arkaysay wadamo kala duwan baa tababaraya waa la tababaray federaal ha noqdaan gobol ha noqdaan haddana iyaga dhexdooda mar walba dagaalama sida waad arkaysay beled xaawo muqdisho waad arkaysay iminkana puntland bay ka dhacaysaa ku dhex dagaalameen isla ciidankii marka maxay tani wax ka bedelaysaa siyaasaddii ahayd in amniga soomaalida lagu wareejiyo oo ay cagahooda ku istaagaan oo ay iyagu maamulo iyo federaalba la wareegaan amnigooda saameyn weyn ay ku yeelanaysaa dhibaatada ciidamada soomaaliya meeshii ramaan ha joogaan ee haysata waxay tahay wadamada iyo hay-adaha tababara waxaad umalaysaa inay si brifada oo qaasqaasa ayay u tababaraan ay hubka u siiyaan sababtaasna waxaad ku arkaysaa inay ciidamada aysan lahayn ciidanka ama maamulku leeyahay ama dawladduba leedahay inaysan ahayn qaarkood awood badan oy ku challenge gareen ama hor imaan karaan systemka iyo dawladnimada meesha ka jirana waa lagu beelaaho waa lagu dhaqaa waa lagu maalgeliyaa soomaaliya maanta waxaad arkaysaa ciidanka amisom ha ka baxeen inay dawladdii dhexleedahay oo bilaba loo qabtay haddii marka sidaan isku dhacaana uu imaanayo oo ciidanka ay sidaan u kala qoqoban yihiin ama qorshaha ciidan ee soomaaliya difaaci laha uu sidaa noqdo waxaa imaanaya yani dib u dhac weyn oo lagu kalsoonaa kari in soomaaliya isku filaato ciidan ku filane daraf ilaa daraf ay maanta isdifaacdo qaas ahaan gobolka bari wuxuu xuduud la yahay yemen oo taqaana waxa ka jira badda cas oo darata waxa ka jira taasina waxay khatar weyn ku tahay jiritaanka iyo amniga gobolka bari waad mahadsan tahay cabdisalaan guuleed oo ka faallooda arrimaha amniga iyo ciidamada ayuha oo London igaga soo biiray wuu mahadsan cabdisalaan